labada nin ee la la'yahay waxay ka shaqo tageen degmada Bareeda magaalada caasimada oo ahayd Bareeda maalintii taariikhdu ay ahayd 14 bishii 8 2021 oo ku beegnayd Sabtidii. waa gartay nimankaas waxay wateen laashka nooca loo yaqaan Laylo ay Soomaalidu u taqaan waxayna u shaqo tageen Raas Casayr meesha loo yaqaan Raas Casayr magaalada Bareeda wuxuu jiraa 18 mayl tuulada Daamo Bareeda iyo Daamo waxay isu jiraan 15 mayl Daabo Raasigu wuxuu jiraa 3 mayl Tooxina wuxuu jiraa Raasigu 5 mayl Raas Casayr markaan ku leeyahay oo aan ku sharaxay inta mayl u jiraan tuulooyinka iyo degmada uu jiro waa meesha labada badood badda Indian Ocean-ka iyo badda Fiisigu ay isugu tagaan ama ku kala noqdaan xilligan waa la socotaa waa bishii 8aad maalintaas waxay ahayd 14 bishii 8aad waa xilli ay jirto laba ciladood oo midna waxa weeye baddu waa kacsan tahay wali waa xilli xagaaya marna raasiga waxa ka dhacaya qabow aad u fara badan oo waxa garanaya dadka ka shaqeeya xilligan oo kaleeto qabowga ka dhacaya waxa la yiraahdaa Siberia ayuu la mid yahay marka nimankaas laba nin bay ahaayeen naaqudaha waxa la dhihi jiray Cabdullaahi Eelay ninka labaad magaciisa ilaa hadda ma garanayo ilaa maalintii saddexaad oo maanta ahayd waxa la sheegay in shalana doonta u shaqeynayeen iyo ximado aad u fara badan ama laasas aad u fara badan ay raadiyeen maantana laasas badan loo diray oo ilaa 10 gaaraya alaaba waxa dhaca markii shilkan oo kale dhaco doonta ay u shaqeynayaan ama shaqada meesha ka socota shirkadda iskale waxa soo gaaray iyaga laftigooda culays fara badan maxaa yeelay waxay ku qasban yihiin maalmo badan in la raadiyo markaasna ay shidaal badan iyo kharash badan uu ku baxo saacadan aan kula hadlayo oo caaway bisha 17 ay marayso nimanka rag iyo ruux lama sheegin